بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن أصحاب قيمها بدل له channel ka daawanaysan waciga official magacayguna waa Cabdishadiga soo dhawaada asxaabay kuna soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan haddii Allah wada loo raali ka noqdo waxaynu reaction yar oo kooban ka bixin doonaa video run ahaantii saameyn aad u xooggan igu yeeshay oo aan ku arkay social media ama baraha bulshada ku wada xiriidho inoo bilaabo markaasi muuqaalkan waxa inooga muuqda waa nin waxa uu raagsaday oo eegay saacadiisa qof ayaa umala la lahaa balan I don't know ma garanayo balan waxa uu soo gashay gabadhan iyo waxa weydiin doono balan la socono wuxuu ku yiri wad soo habsantay xageed ku maqnayd deetanayadu waxay leedahay intii aan soo dhaqsan karay waa soo dhaqsaday waxna uu sharaxaysaa balayno eegno waxa ay isweydiinayaan I don't know what that feels like, okay? So easy for you to say you're sorry. Oh, ninkan odayga ah inankiisa ayaa dhakhtarka yaala oo xanuunsanaya dhakhtaraduna waxay ahayd dhakhtaradii daweynaysay ama uu keenay inay aragto inankiisa Look, I understand. I really am sorry. But right now, let me help your son, please. Okay? waxa ku tiri wax walba waan garanayaa waana la socdaa waanan ogahay imikana diyaar waxaan u ahay inaan inankaaga ama ilmahaaga caawiyo saas ayay ugu sharaxaysaa bal wuxuu ku jawaabo iyo xaaladda halkay ku dambayso let's see saacad baa ka soo wareegtay 2 saacadood baa ka soo wareegtay 3 saacadood 4 saacadood kadib waxa uu weydiinayaa sida uu yahay xaaladda ilmihiisa Doctor, how's my son? Great, and your son's doing just fine, but I'm really sorry, sir. I'm gonna have to be on my way. sheegtay in ilmihiisa yar caafimaad qabo kuna guulaysatay operationkiisii haddana uu arki karo oo la kulmi karo way ka tagtay way kasii baxaysaa dibadda ayay u baxday First she shows up late. Then she can't even stick around and give me the details? ay weli wuu isla sii indhacadii ninkan odayga wuxuu ku leeyahay marka hore way ka soo habsaantay haddana detail ama information dheeraad ay maysin oo kaliya waxay sheegtay inuu ilmahaaga yar caafimaad qabo maxay warbixin intaa ka badan ii siisin leedahay ayaa uu leeyahay It's so inconsiderate. I'm sorry, sir. I know that you're frustrated. inantan ayaa markaa u but sharaxaysa please understand that the reason she was late is because she was coming from her son's funeral. allahu akbar eg sababta ay kaaga soo habsaantay waxay ahayd bay ku tiri sababtoo ah inankeedii yaraa oo la soo aasay ayay xabaashiisii ama aaskiisii ka timi imagine qof dhan oo ilmihiisii yaraa la soo aasay xabaashiisii ka yimi oo adiguna uga cagajuulaynaysa maxaad ilmahayga yar u badbaadin weyday allahu akbar He passed away recently, and instead of being there to bury her son, she was here, saving yours. eeg hadda waxay ku tiri intii ay ilmaheeda yar aaskeeda ka qayb geli lahayd waxa ay u soo degdegtay oo ay u timi inay ilmahaaga badbaadiso halkee laga helaa qof noocaasoo kale ah aad ayuu u yaryahay bal aynu eegno xaaladda iyo waxa ay ku dambayso iyo ninkani waxa uu ku jawaabo Imagine being rude to someone and then later finding out that they just lost a loved one. waxaad Imagine qiyaastaa buu leeyahay ninkan odayga adiga oo qof canaantay oo ku xumaaday mar dambena aad ogaatay inay waayeen ama ay geeriyootay amaba ay ka dhimatay cid ay aad u jecel yihiin bal qiyaas xaaladaas oo kale fideogan yar waxa uu inoo soo gudbinayay inaynan dadka ixtiraam darro ama ku degdegin oo aynan si degdega u charge garaynin amaba aynan si degdega awaamiir u qaadanin ama aynan u xukumin inagoo aan qofnaba xaaladiisa qiyaasi karaynin
dadkanu la xidhiidhinayn macaamilka la leenahay xaalado kala duwan ay ku sugan yihiin. dadkaad warbixinta ka doonayso, dadkaad u shaqayso, dadkaad wax la barato, dadka aad isku meeqaamka tihiin ee aad wax wada dhigataan, mar walba waxa aad ogsoonataa inuu qof walba xaalad gaara iyo bulsho gaara iyo meel gaara u ka yimid. ha dhaawicin dareenka saaxiibkaaga, ha dhaawicin dareenka qofkaad wada shaqaysaan, ha dhaawicin dareenka qofkaad wax wada barataan. alwaysna ku dadaal qofna adigoo aan ogaanin xaaladiisa inaanad judge garaynin amaba aanad criticize garaynin oo aanad ku qaylinin, ku buuqin maxay sidan u noqon weyday. qof faraxsanaa shalay tole ayaad maanta murugo ku arkaysaa, qof maanta murugaysnaa ayaad farxad ku arkaysaa. qofnaba hawla dhaqmin adigoo aan waraysan, adigoo aan xog ka helin, adigoo aan xaaladiisa dhabtaa qiyaasin. ha ku xumaanin, ruud ha ku noqonin, isla markaana go-aano degdega ha qaadanin. waa fariinta uu sido videogeera gaaban. intaynu video kan oo kale ku kulmayno, don't forget to subscribe.